hadda hadal badan maanta oo kale iyo madashan oo kale iyo anoo gurigayga joogo kale hadal badan iyo ma fura waxay u furan soo dhaweyn iyo tarxiibin iyo inaan u mahad celiyo intii waqtigooda badan halkaa noo soo siisay aniga ma intaasaa ii furan waxaa kaloo ii furan hal qodob dardaarana maadaama gurigaygii yahay guri kastaana wuxuu leeyahay mabda ayuu leeyahay guri kastoo naga mid mabda buu leeyahay aniga mabda halkan waxa weeye maanta aan isugu nimid keliya soo dhaweyn wey kuma jirto wax kaloo haba yaraatay siyaasadda haba yaraato waxyaabaha aan qabno wixii kaloo maxaan ku ihahdaa hawlaha xafiisaynu u leenahay geed baan u leenahay iyo qurac aan kaga hadalno halkan keliya waa soo dhaweyn dowladda aan soo dhaweynayno annagoo u muujinay inaan raalli ka nahay hawsha ay hayaanoo culus inaan ku mahad celinno waxaa xoogaa karaamo darro nagu ah hal bilood bay joogtay dowladdu hal bil bay joogtay bishaasna waxay ku dhex jirtay waa ka warqabtaan kulligii waa ka warqabtaan marka magaalada in laga soo saaro oo bal miyiga la keeno waxoogaa bareesharka saaran waxoogaa aad bay muhiim u tahay waxaan rajaynayaa maanta waxaa ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay dacayga furan doonto oo jimco walba ay qolo qaadan doonto haddii lahayd mo insha allahu tacaala anigu intaasaan ku soo ururinayaa waxaa kaloo keliya aan oran lahaa ninbaa waxaa laga sheegay anu hadda miyi baan deganahay nin dibadaha deganna waanahay miyigana waa deganahay magaaladana waa deganahay laakiin miyigaan jecla markaan run idin sheego hadda habeenada bannaankaasa saxdaa anoon ilaahay mooyaan qofna ka baqayn keliya arigan waxaa looga baqaa dhulaagu inuu iga soo dhaco wax kale kama baqo ilaahay ma haddaa iskale waxaan markaan ka wadaa ninbaa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi hangoolkii iyo qorigii midba geed baan ku soo arkay buu yidhi ha qorigii dheeraa iyo ganihiisii ama hangoolkii isagoo isku dhina waa la yidhaahdaa ama waaba la kala yidhaahdaa laakiin dhaqanka aad baa layga badiyaa labadii meel baan kusoo kala arkay buu yidhi maanta dowladda puntland halkaan nala joogtay madaxweynaha iyo wasaaradiisa mar haddii maamulkii puntland oo runtii ku asaysan maanta dowladnimo wanaag iyo isla xisaabtan iyo wax wada qabsi ku asaysan maanta oo nidaamkiisu maanta runtii haddii la daba joogo sida uu yahay aan rajaynay looga gudbo wax kaloo weyn hadduu maanta isla helo bulshadii puntland oo midaysan oo ismadu hogaaminayaan iyo nabadoonnada samadoonnada cuqaasha ay kaashadaan ganacsatooda ay kaashadaan aqoonyahaankooda dibadii gudaba waxaan u malaynayaa riyadii dowladda madaxweyne cabdiweli inay u hirgashay baan aaminsana wuxuu isla helay ganihii iyo wuxuu isla helay qorigii labadaas isla helay waxaa la yidhaahdaa baalkaan la yidhahdo maxaa la yidhahdaa hangoolka midna waxaa la yidhahdaa sharkaa la isaga riixaa kooxda la isaga xeshaa midna khayrkaa lagu soo jiidaa baa la yidhi marka labadii maanta u haystaa waxaan leenahay rabbi deeqa u haysataa xagso baan leenahay waxaa kaloo ugu baaqayaa ismadkaan u daynayaa arrimahaas oo dhan iyagaa igana mudan iskana leh madashan oo kale haddii la haydmo gobolka mudug hadduu hagaago oo sharciga maanta lama odhanayo mudug ama waxaa la odhan jiray sharciga iyo mudug yaa kala garanaqi doonaa la odhan jiray maanta warkaasi waa bure waa dhammaaday waxaa arkaysaa nin leh furihii waa kale madaxweyne ha laga qabta aniga mid waxaa arkaysaa mawduuca kusoo toosay ha lagu beego gurigayga bartankiisa marka mudug sharcigii maanta way qaadatay haddii mudug hagaagto waxaa hagaagaya puntland oo dhan puntland haddii hagaagto waxaa hagaagaya soomaaliya o dhan ismada iyo dowladda waxaan ka codsan lahaa mar labaad mar saddexaad gobolka mudug aan degannahay waxaa nala degan niman kaloo walaayahayna oo galmudug la yidhahdo way nala degan yihiin mana kala maaranno in iyaga markooda sidan iyo si la mid ah ismadu ay gogol nabadeed oo walaalnimo oo wada hadal oo wada tashi markooda loogu dhigo si soomaali weyn loo asteeyo istruktuurkii dambe la istruktuuri jirina uu dhammaado intaasaan kusoo koobayaa aad baad umahadsan jazakum allahu khayra jaza wasalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh marka waa halkan la isugu yimid oo uu gogosheeda noo dhigay amiir maxamuud ciise yuusuf aad baan ugu mahad celinaynaa asaga iyo dadkii ku hawshooday xafladan iyo gogosha dhigiddeedaba xafladan macnaheedu wuxuu
gogasha waxaa noo dhigay amiirka iyo ragga aan kor ku soo xusay laakiin taladeeda haddaanu nahay reer muduga Puntland waa u dhammayn macnaheeduna wuxuu ahaa waxaan ku soo dhaweynaynay dawladda waftiga nooga yimid oo ka soo kicitimay magaala madaxda Garowe oo madaxweynuhu hogaaminayay madaxweynaha iyo waftigiisa waa ku soo dhaweynaynay waxaan ku bogaadinaynaa hadday noo yimaadeen hawsha ay qabteen oo ay ka qabteen magaalada Gaalkacyo iyo kormeeradii ay ku sameeyeen degmooyinka gobolkan ay ku sameeyeen aad baan uga mahad celinaynaa ugu bogaadinaynaa si geesanimo leh oo dadnimo leh bay hawshay u yimaadeen oo dib u habaynta iyo hagaajinta iyo bilicda magaalada iyo nabadgelyada intaba isugu jirtay si fiican bay u wajaheen waxaan rabnaa inaanu qiro waxaan u jeedno iyo waxaanu aragnay Xuseenow ninkii hagar yaqaan buu yiri waa habaar qabe ninna hagagi maayo ee runtaan heeg u mariyay haddii aan hamiyay aakhiraan laga habaabayna inaanu sheegno wixii fiican garbaan u leena wixii dhaliilana inaanu ayadana sheegno garbaan u leena waxaan leenahay soo dhawaada waxaan rajaynaynaa adinkoo sidaa noogu timaadeen ka sii sharaf badanna wada bixitibin doonaa haddii alla idmo hawl kama daalooyin hogadii baa lagu jiraa wax badan waxbaad bilowdeen wax badanna waa idin hareen waxaan aad ugu mahad celinaynaa hawshii aad bilowdeen dadkii ka qayb qaatay oo reer Gaalkacyood oo deganaa oo ganacsato lahaa oo odayaal lahaa oo caquul lahaa oo dumar lahaa oo ciidamo lahaa oo aanu kala harin oo idinku garab siiyay hawshii aad qabateen waxaan u mahad celinaynaa guddigii dawladdu u xil saartay arrimahaas oo si geesinimo iyo daacadnimo leh ku wajahay baan u mahad celinaynaa ayaga laftooda waxaan leenahay ducaan ugu daraynaa ayagoo ilaahay mahad haydan ka gaarto waxa dambana weydin la shaqaynaynaa waxaan cadayn karayaa anigu magaalada waxaan ku leeyahay hadalkayga dhab loo maqlimayaan u maleynaya anigu waxaan cadayn karayaa magaalada anigu waxaan ku leeyahay guryaha ugu roon mid ku jira haddii uu ku yimaado maxaan kuu sheegaa jabinta oo danta bulshada loogu shaqaynayo oo magaalada sharafteeda loogu shaqaynayo raalli baan ku noqonayaa waliba waa ku horgalayaa haddii alla dadka arintaa wada waxaan aad iyo aad ugu dheeraysanayaa gacan ha lagu siiyo wixii haray iyo wixii tagayba wixii tagay waa lagu siiyay macnaha oo la qabtay waxa harayna waa gacan in lagu siiyo dadka inoo shaqaynayo ilaahay inoo soo diray nin oo maxaan kuu sheegaa iska miskiin ah oo aan garanayn dan umadeed iyo dan dawladeed iyo wax loo yimid iyo waxa loo socdo lala tashanayo loo burburinayo meelaha qaarkood oo dabaqyo ka dhisnaayeen bilaash wixii ka dhisnaa wax ka fiican oo soo jeeta ummadda Soomaaliyeed oo halkan mudug taqaana baa la rabaa in laga sameeyo haddii alla idmo sidaa rajaynayo hal la sugo oo hal la fiiriyo nin walbaaba hadduu meel ku dhago xatab ah dad xun baynu noqonaynaa intaas haddaan dhaafo waxaan u gudbayaa xagga nabadgelyada ha laga shaqeeyo oo ha laga wada shaqeeyo oo dadka reer mudug ama ha ahaadeen dhinaca haddaan hadda oran lahaa galmudug waxaan ka baqayaa in eeday ugu raacdo niman kale yiri annaga ku haysana oo ahlu sunna wal jamaa la yiraaho baa yiri annaga ku haysana marka cid kasta ha ku haysateen walaalaha iyaga dhinaca daga waxaan leenahay sida hawsha fiican looga qabtay magaalada dhinacan Puntland u taliso barbarkiina hawshaas oo kale ka qabta haddii aan ka qaban karin annaga idin qabanaynaa nasiya waqti iyo fasax oo nala shaqeeyo sidaas baan leenahay waxaan ognahay inagu walaalaynu nahay ilma abti ilma habreed ilma eedo nin iyo sodogi nin iyo seedigi waxa aynu kala nahay ma jirto mudugna haddii rabbi idmo laba khad ma yeelanayso khadka cagaaran waa baaba'aya
mudug bay noqonaysaa waxaana hogaaminaya haddii rabbi idmo ciddii ku habboon hoggaanka oo mataqaanaa istaahila baa hogaaminaya taasna waa in la ogaado weeye farriin yar waxaan ka leeyahay dowladda federaalka waxa weeye dowladda dhexe oo Soomaaliya ay leedahay waxa lagu guuldaraystay wax kasta oo la isku dayay madaxweynayaashii tirada badnaa iyo ra'iisul wasaarayaashii tirada badnaa oo hadda ka hor federaalka soo maray waxaan u malaynayaa marka inaan wali la helin hoggaanka Soomaaliya cidii ku habboonayd oo wax isu keenay lahayd inaan wali la helin baan rajaynayaa waxaan hubaa shacabka Soomaaliya dad fiican weeye hadday helaan hoggaan fiican waxaan idinka rajaynaynaa in aad isu soo jiidaan oo isu soo dhaweysaan xantu waa badan tahay dadka Soomaaliyeed hadeer waqti uma hayo ma sheegi karo nin odayana waa iguma habboona inaan hadeer waxyaalaha qaarkood fagfago iguma habboona xantu waa badan tahay xamar ka jidha waxaan la qaran karin marka dawladda ad hadda ay xamar laga hogaaminayo ciidamada UNISOM oo yimid tacaddi badan bay geysteen waxay ka geysteen qooxle hadda waxay ka geysteen marka waxay ka geysteen gado waxay ka geysteen bakool aad ka tiraahayna male dadkii waxaas lagu sameeyayna waa ka xun yihiin Soomaaliya dhanna waa ka xunta wax mugeeda leh oo u qalma kama inaan oran dadku wuxuu ku qanca u sheega dadka iyaga in la gumaado raali kama nihin in ciidamada ajnabiga inay wax qabtaan bay noogu yimaadeen inay dadka iyaga gumaadaan raali kama nihin waxaan rabnaa inaad dadka u sheegtaan wax mugeeda leh oo u qalma oo waxa ku dhacaya istaahil haday yihiin waxna deeqa sheega haday inu ahayna gardarro iyo hadeed dadkii noo soo gurmaday inay wax noo qabtaan baan rabnay in dadka iyaga la gumaado raali kama nihin taa waa fariinaan u dirayo dawladda federaalka oo madaxweyne cabdi uu hogaaminayo maxaan ku xasan sheekh maxamed uu hogaaminayo waxaan leeyahay hadii rabbi inoo hadalkayga waan ka baxayaa dawladda dadka nooga yimid oo madaxweynuhu hogaaminayo waydan la shaqaynaynaa garab baan idin noqonaynaa waa ku qanacsanahay sida aad u shaqaynaysaan gaalkacyo goormaasaan oo kale laga qabto waa ku noqda hadalka waa ii macaan yahay moogta hada waa run baan sheegaya hadal ii macaan weeye goormaa laga qabta waxaan oo kale dawladdii dhexe maxamed sayaad baan ka qaban kuwii ka dambeeyaan ka qaban waxaan marka fariinta aan idin gudbinaya ay tahay magaalada dhexdeeda haddii awood loo helo waa in la mariyaa jidad waaweyn oo 20 iyo wixii ka badana si ganacsigu u fido oo dadka meelay degaan waa dukaamo uga furtaan saas way ku boorinayaa hadday ku timaado guri kasta oo sharaf leh waxa ka xaq leh bulsho weyn ilaahay waxaan ka baryayaa khayr ilaahay inuu idin siiyo khayr baa noola timaadeen beenna anigu ma sheegayo faan beenana ma sheegayo waa istaashaan dadweynaha reer gaalkacyood ama reer mudug hadda waxa fadhiya reer galdogob waxa fadhiya tuulo xarfo waxa fadhiya maxaan ku reer Jariiban waxa fadhiya maxaan tuulooyinka la xiriiro kala degmooyinka waxa fadhiya reer gaalkacyood waxa naga go'an inaan dawladda la shaqaynayno tilaabaqaadkeedaas ay qaaday raalina waa kana توفيق الله نوافق أمورتنا الله سا اللهم صل على محمد وحي قال الله رالها الله يقهر فرح سنة سببته waxa ii muuqda jawi aad u wanaagsan oo qurux badan ayaa ii muuqda waana sida odayaashu sheegeen waa rajaynayaa in dhamaanteen inagoo mid ah aanu meelo kale oo tiro badan iyo xaflado kale oo tiro badan oo noocan oo kala inaan isugu nimaado waa loo baahan yahay dadku inay is arkaan shacab isimo dawlad dadku inay isu muuqdaan oo isu yimaadaan wax meesha ku jira weey aad iyo aad bugu maasan yahay marka talaabadan runtii horumar kale oo qaaday amiirka aad baan u aqaanaa waana soo wada shaqeynaa hadda ka horo safraan wada galnay runtii wuxuu kaga duwan yahay xagga dhaqanka waxa weeye waa isin dhanka horumarka aad ugu dheereeya weey
oo waxyaabaha horumarka bulshada ah runtii aad uga shaqeeyo waan ku mahadsan yahay waan ku ammaanay waxaan hadal leeyma hanbaynino isimo iyo gudoomiyaha hore baarlamaanka oo waxaan u maleynayaa shaqadoodu sida ay u badan tahay war iyo xalin iyo wax isu sheeg ayaa iga horeeyay marka warkayga waxaan ka baqaya inuu micno badan yeelan waayo يا دعادي يا دعاء دعينا إن شاء الله لفتي هذا ولا في عيه دعوني كانوا حنوش على تي إسلام حسن طبعا قراية waxaa weeye marka waan idin nimid runtii gobolkana muddo waan ka maqnayn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka reer mudug gaar ahaan reer gaalkacyood ugu horreyn soo dhoweynta ayna soo dhoweeyeen marxabayntii quruxda badnayd iyo inta kaloo aan soo marnayba dhammaantood soo dhoweynta aad ugu mahadsan yihiin gaar ahaan reer gaalkacyood waxaan aad uga mahadnaqaynaa sida ay noola shaqeeyeen wax wanaagsan oo si wanaagsan ayay noola shaqeeyeen isimaha ahaadaan dumar dhalinyaro bulshada oo dhan runtii dhammaantood iyagoon kala har lahayn ayay si fiican noola shaqeeyeen aad bay ugu mahadsan yihiin annagu waxa weeye marka waxaa niyaddeeda ku jira sida wasiirku sheegay waa wanaag weeye uma aanaan imaan dadka inaanu barakicinno inaanu dhibaatayno uma aanaan imaan waxay naga tahay annaga niyad ahaan inaanu wax saxno wixii khaldamay oo magaalada ka khaldamay inaanu saxno weeye waxaan u nimid waxaanuna jecel lahay waxa guriga dumaya iyo bugcadda jidku marayo wixii ku yaalay wax ka wanaagsan inaan ku bedelo ayaa niyaddeeda ku jirta aanu rajaynayna insha allah waxaan rajaynayaa kana tagi mayno magaalada amiir iyadoo shaqadu qabyo tahayna ka tagi mayno iyadoo dhammaystiran insha allah ayaan ka tagi doonaa dilaa yiraahdo markay hawshaas dhammaystirana waxa ka soo bixi doona waxaan rajaynayaa wax gaalkacyo iyo mudug iyo Puntland iyo Soomaaliya ay ku farxaan oo ay jeclaadaan in ka soo baxaan baan rajaynaya insha allah waxaan kaloo rabaa runtii gogashani waxa weeye astaan midnimo weeye waxa ii muuqda waa midnimo dadkeeni oo midnimo weeye dabcan furaha horumarku waa midnimada weeye dadku markay mid yihiin oo meel u wada joodaan oo niyadooda iyo qalbigooda iyo ficilkoodu uu meel u wada jeedo ayay wax qabsan karaan waxaan rajaynayaa midnimadan ilaahay inoo barakeeyo horena aan ugu socono insha allah hadii ilaahay yiraahdo ayaan rajaynayaa tan ah dhanka aan rabaa inaan iyana wax ka iraahdo nabadgelyada magaalada runtii qorshihii nabadgelyadu waa u socdaa gudiyada waa shaqeynayaan hawshaasina si fiican oo mug leh ay u bilaaban doontaa waxaan rajaynayaa sidoo kale sida tan barnaamijkan bilicda iyo qurxinta magaalada mid la mid ah inaad nagala qayb qaadataan dhanka nabadgelyada sugidda iyo amniga gobolka iyo degmada inaad nagala qayb qaadataan sababta waxa weeye horumarka aan ku taamayno iyo waxaan rabnaa inaan suubinno haddaan nabadgelyo aysan ahayn nabadgelyada ayaa furaha u ah furaha horumarka iyo guushu waxaa weeye nabadgelyada iyada inaad nagala shaqaysaan waan ogahay nabadoonnada iyo isimadu ayagaa fura u ah nabadgelyada ayagaa fura u ah waxaan rajaynaya iyada inaad nagala shaqaysaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa dhammaanta inaanu meelo kaloo dambe aan isugu nimaadno insha allah inta noo dhiman joogitaanka iyaga gobolka aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khayr baan idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi